السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتي تبعيبتين وسلامي maanta casharkeenu wuxuu ku saabsan saddex application oo ka caawin doona in aad ku edit karayso videoga adigoo isticmaalaya mobilkaaga Android-ka una sameynaya intro iyo outro hordhac iyo dabdhac. insha Allah marka saddexdan application waxaad ka helaysaa App Store-ka ama Google-ka marka insha Allah casharkeena ayuu iska bilaab application kan ugu horeeyo waxa la dhahdaa Slideshow Maker application waxa ka caawinaya in aad marka aad soo degsato aad ku dhufato si toos ah wuxuu u geliyaa in gallery-ga ee waxaad uga soo qaadaysaa wixii aad u baahnayd sida video in sawiro si aad compact isaga samayso kadib application waa kan in halkan kore ayaad ku dhufanaysaa kadib markaad ku dhufato wuxuu ku oranayaa in video soo qaad gallery-ga marka gallery ka soo qaado salahan kan ayaad ku dhufanaysaa all kadib waxaad ka dooranaysaa video aad doonaysaa inaad video ka samayso hadii kalena waxaad ku dhufanaysaa photos si aad photo u samayso markaas video ayaan soo qaadanaa salahan video ayaan soo bixinaa marka video markaad ku dhufato halkan ayuu soo geliyaa barta kadibna create ayaad ku dhufanaysaa create markaad ku dhufato video soo qaabkan ayuu soo baxayaa marka waxa sameeyay video-na edit gareyso edit ayaad ku dhufanaysaa si aad wax uga jarto ama aad qoraal halkan u soo geliso hadii doonayso qoraal soo geliso title ayaad ku dhufanaysaa hadii kalena strings aad ku dhufanaysaa hadii kalena waxaad ku soo daraysaa waxyaabo kale oo ay tahay sida qoon oo kale hadii aad doonayso inaad meel sawirto oo kale halkan draw ayaad ku dhufanaysaa qalin aad mariso hadii kalena waxaad ku dhufanaysaa tan ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa blank waa hadii aad ku soo darayso slideshow kale iyo qayb kale oo video oo slideshow hadii aad ku soo darayso kadib warqadda colorka ee kaana soo ayaa dooranaysaa kadib marka aad doorato halkan ayaad ku dhufanaysaa kadib warqadda way ku save gareynaysaa xagga dambe ay ka jirtaa waa tan warqadii video markuu socdo waxaad u gelaysaa qaybtii kale ee warqadda markaas qoraal ayaad ku qoraysaa halkan tusaale ahaan ba hadii aynu qoraal ku qorno markii halkan keeno anjayna title soo bartan title-ka ayaan ku dhufanayaa kadib bartan waxaan ku sameeynaa in aan qoraal ku qoro tusaale ahaan goodbye oo kale inta ugu dambaysa kadibna okay ayaad siinaysaa kadib qoraalkii waad jiidaysaa waad weynaysaa drag ayaad ku sameynaysaa inta doonto leh halkana waa inta uu soconayo qoraalkan ayaa halkan ka turjumaysaa halkan waxay ka turjumaysaa ilaa inta uu soo baxayo marka kadib okay ayaad oranaysaa okay marka tiraahdo video aad daarto wuu soconayaa video aad daarto wuu socdo wuxuu u geliyaa qaybtii qoraalkii ayuu geliyaa markaas halka internetan ku dhaafo waxa sameyn kartaa inaad cod ku soo dari karto salahan music ayaad ku dhufanaysaa codkii hore dad ka jarsanaan ayaa oranaysaa hadii kan codkan waa mid kamid ah ayaad ku soo daraysaa kadibna cod ayaad oranaysaa kadib saas ayuu codkii ugu bedelay markuu dhameeyo waxaad sameynaysaa in aad produce halkan sare gallery kadibna save gallery ayaad oranaysaa labada mid kamid ah doonaysaa inuu gaaro tamba iska markaas sidaas ayuu waa artan si uu dheerayn aad buu u dheerayn dabcan markaas save ayuu ku noqonaya kan hadii inta aan iskaga dhaafo kan sayraado inta ku dhaafo waan application kale oo kale application kan labaad oo isaguna mid sidii soo kale u shaqeynaya laakiin isagu wuxuu kaga duwan qoraalka ayuu farta ayuu aad fara badan ayuu leeyahay oo kala duwan qoraalo kala duwan ayuu leeyahay kadibna application marka soo degsato isla same qaabkii hore weeyaan waxba kama duwana in yar simply in yar buu ka duwan yahay isaguna waa isla qaabkii markaas isna halkan u baad ka edit garanaysaa waa qaabkii same waxba kuma kala duwana marka insha Allah idinku barageeya application kan markaas ma tusayna casharka idinku soo in baan markaas app kan saddexaad ah isaguna draw on screen isaguna waa macna qalin ahaan oo kale ay isticmaalaysaa pointer inuu tilmaamo hadba meesha aad marayso
in aad ku samayso calaamad aad ku samayso taas oo kale inaad tusaale ahaanba application-kan inaad saa u goobto oo habkan markaad isaga soo degsato halkan waxaa muhiim ah inaad bartan ishan yar ka muuqdo inaad sax markaad saarto wuxuu noqonayaa mid markaa wax ku sawiraya haddii laakiin aad ka qaado ma sawiraya haddaad doonayso ka noqoto delete unbaa taabanaysa delete markaas toos buu uga noqon haddii aad doonayso inaad qaybtan sare qaybtan waad ku dhufanaysaa in uu tago xagga hoose inuu tago markaas xagga hoose ayuu tegayaa kolba halkii aad damacdo in uu tago ayaad geynaysaa halka calaamadda yar afarta jiho ayaad ku dhufanaysaa kadib kolba qaabkii aad doonayso ayuu noqonayaa markaa casharkeenu intaas ayuu ku kooban yahay ilaahay channelka inaad subscribe iyo like saarto والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.